السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان بلشدة كحلن kanaalkeena waayo sheeg muuqaalkan waxaynu kaga hadli doonaa warbixin ay daabacday BBC-du warbixintaasoo noo arkay mid faa'iido leh oo aad wax ka kororsan kartaan. ciwaanka warbixintu waxa weeye sadaam xuseen maxay askarta maraykanku u ooyeen markii la daldalay madaxweynihii hore ee Ciraaq. 12 askari oo Maraykan ah oo loo diray inay waardiyeeyaan sadaam xuseen ayaa lagu tilmaamay in ay ahaayeen saaxiibadii ugu dambeeyay ee uu yeeshay madaxweynihii hore ee dalka Ciraaq. waxay ahaayeen askar laga soo xushay ciidamada booliska ee ay tiradoodu ahayd 551 askari kuwaasoo qaabilsanaa amniga sadaam ilaa intii laga daldalayay. Will Barden waxa uu ka mid ahaa 12 askari ee ilaalinayay sadaam xuseen. Barden waxa uu buugiisa ku soo xigtay mid ka mid ah askartii ay hawsha ilaalada sadaam isla hayeen oo lagu magacaabo Adam Rogers. weligan sadaam uusan noola muuqanin nin dilaa ah, wuxuuna la ahaa awoogeen oo kale. sadaam waxaa loo maxkamadeynayay inuu bixiyo amar lagu dilay 148 qof oo ka mid ahaa dadkii maamulkiisa ka soo horjeeday. maalmihii ugu dambeeyay noloshiisa waxa uu xabsiga Ciraaq ku yaalay dhagaysanayay heeso ay leedahay fanaanada reer Maraykan ee lagu magacaabo markii. sida lagu sheegay buugaas waxa uu jeclaa inuu aad u isticmaalo baaskiilkiisa jimicsiga kaasoo uu ugu yeeri jiray booni. macmacaanka ayuu aad u xiisayn jiray, mar walbana agtiisa lagama waayi jirin doolashada nooceeda yaryar. waxa uu qoray in sadaam uu maalmihii ugu dambeeyay si akhlaaq wanaag leh ula dhaqmayay askarta ilaalinaysay, uuna iska bedelay dabeecadihiisii hore. askarigan waxa uu xasuustaa in uu mar sadaam uga sheekeeyey waxa uu ku sheegay ficiladii arxandarada ahaa ee uu samayn jiray wiilkiisii Cuday, taasoo uu isagu dhibsan jiray. sadaam waxa uu askari kale u sheegay in haddii loo ogolaan lahaa inuu lacagtiisa isticmaalo uu askarigaas wiilkiisa ugu bixin lahaa kharashka iskuulka. saaxiibtinimada sadaam ee askarta ilaalinaysay sidaas ayay u sii weynaysay marba marka kasii dambaysa. sida uu sheegay Barden Waber, inta aan la daldalin ka hor waxa uu maray 2 xabsi oo ku taalay Ciraaq. askariga lagu magacaabo Adam Rogers ayaa u sheegay in sadaam uu ka maqlay 30 bishii December 2006 sadaam xuseen waxaa hurdada laga soo kiciyay habeen ay saacadu ahayd 9 PM. waxaa loo sheegay in mar dhow la daldali doono. markii uu fariintaas helay si tartiib ah ayuu u soo qubaystay, waxa uuna isku diyaariyay dilka.